بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسن داوديال ciidamada daraawishta ee Jubbaland iyo kuwa xooga dalka Soomaaliyeed ayaa saacadihii la soo dhaafay gacan ku hayn si rasmi ah loo wareegay gacan ku haynta degmada Xagare ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya halkaas oo ay ka talinayeen kooxda argixisada ah ee Al-Shabaab 15 sano ee ina soo dhaaftay kooxda Al-Shabaab oo ka talinaysay degmadaasi ayaa sida dadka deegaanka ay sheegeen isaga baxay degmada waa barigii hore saaka kadib markii ilaa 3 jiha ay weerar kaga soo qaadeen ciidamada xooga dalka iyo kuwa daraawishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland lamaha amaanka oo aan qadka telefoonka kula xidhin ayaa noo sheegay in si rasmi ah ay u wareegeen degmada Xagare isla markaana ay kooxda Al-Shabaab isaga baxeen degmadaasi haddaba waa sida xaaladda guud ee degmada maxaan kala soconaa qorshaha dawladda ee gacan ku haynta degmada Xagare xildhibaan aadan xareed oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee maamulka Jubbaland ayaa qadka telefoonka si toos ah ugu jira magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane xildhibaan bal noo waran maxaanu kala soconaa weerarkii saaka lagu qaaday ama howlgalkii saaka lagu qaaday degmada Xagare bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay wariye Cabdijaliil yow degmada Xagare waxay kamid tahay degmooyinka Jubbada Hoose ka maqnaay marka hore si guudna Jubbaland uga maqnaay in dhawaalada waxa socdo howlgallo oo qawaariijta lagu qaaday in wax looga qabto degmooyinkii iyo deegaanadii ay haysteen ay kamid ahayd in dhawaalo weyn la aado go'aanka oo ahay alxamdulillah howlgalladii la sameeyay ay fursad u heshay inay qawaariijta laga xoreeyo xalay abaara 10 saac wixii ka dambeeyay galeen ciidanka Jubbaland ee daraawishta iyo ciidanka dowladda federaalka ee inta ka joogo oo xooga dalka qaybta danab iyo specialka marka alxamdulillah inuu deegaanka hadda waa nabad wax dhib kama jiro gacan ku hayntana hadda dowladda Jubbaland iyo ciidamadaas gacanta ku hayo marka intaan hadda ka ognahay kasto Kismaayo aan joogo intaan ka ognahay waxaan aad iyo aad ula soconaa in xal fiican laga gaaray in Xagare la qabto waana anaga hadana xildhibaanadii ka soo jeeday degmada Xagare in dhawaalana aanan wadankii aanan tagin waxaan ku rajaynayaa in la sii hayo oo sidii anaga aan ku tagi lahayn deegaankaas horumarkii 15 sano baga qawaariijta ay u diideen in hadda Jubbaland ay ka hirgelin doonto anagana aan sida u adeegi doono dadka insha Allah wax qasaare ah maxaan ku ognahay waxaan maqlaynaa saaka in diyaarado dagaal ay dagaalkaasi ka qayb qaateen wax qasaare ah ama wax dhimasho dhaawac dadka shacabka reydka soo gaaray oo aad maqasheen ma jirtaa no horta anteenada hadda way shidan tahay wax dhib weyn oo maqalna ma lahan markuu dagaal dhacana qasaaro uu imaanayaa laakiin hadda wax qasaaro oo exactly aan ku dhihi karo Cabdijaliil waxa dhacay ma jiraan laakiin waan soo ogaanaynaa wixii meesha ka jiro xogtana laamaha amniga weydiin doonaa iyo sida wax u dhaceen anaga laakiin xildhibaan ahaan maadaama degmada Xagare aan ka soo jeedo aan hadda Kismaayo joogo waxaan ognahay in degmadii la qabtay si nabadna lagu qabtay wixii ka dagaaladu dhacay qasaaro uu imaanay laakiin hadda wax qasaaro ah oo hadda aan ognahay oo aan isleeyahay waxa dhacay aan media la wadaagi karo malahan ama idaacada laakiin waxaan ogaan doonaa markii urta degto dadka hadda waxa walaahow iska jiro waa taqaana meel dagaal ka dhacay dadka waa la kala farxanay marka nin walba meel uu ka bixi hatta qof bilaadan dooreysata ma heli kartid qofku wuxuu ku sheego oo saxan ma la arki karo nin walba meeshii asaga marka ayada uu dagaalka iyo waxyaabaha dhacay uu kaga badbaadi karo uu ku gabani marka hadda wixii ka dambeeyay baa soo bixi doona dadkan waa la wacyigelinayaa in dadkoodii in muddo ah maartay ka maqnaay ay u imaadeen in maartay amnigooda la sugi doono in maartay meeshaas sidii lagu sii haan lahay maadaama ay 15 sano ay dadka dhibaato badan iyo caqabado fara badan ay la kulmeen horumarkii dadka la waayay oo meesha iskuul kama jirin wax ka jira ma lahayn waa deewaarka kartaa oo degmooyinka laga qabtay dhibaatadii caqabada nimanka ku hayeen taa bay maartay ayadana inay ka bixi doontaan aaminsanahay ana laga soo noqon doonin oo gacanta dowladda Jubbaland sida u soo gashay noqon doonto sababtoo ah Jubbada Hoose waxa maqan 3 degmo mid kamid ah Xagare ay ahayd jamaaman insha Allah ayadana way ku xigi doontaa jilibna ayadana insha Allah waxa jiray meeshay dhahan badhaadhan ayadana insha Allah waa la qaban doonaa wixii ka dambeeyay Jubbada dhexe in loo diyaar garoowaan aad iyo aad dowladda aan
dhowr jeer anaga dadaan nahay xildhibaanadii aan ka codsanay dadku waxa ay rajaxmo ka muujinayaan si joogitaanka ciidamadan qabsaday saaka degmada Xagar oo waxay leeyihiin dadku waxa suurtagal ah inay dib ugu soo gurtaan arrintaasi walaac inta laga idinku haysaa wallahi niyo Cabdililow sax waa horta xeelad dagaal waa arrintaas markii la dagaal la galana waxa suurtagal noqon karo in dib loogu soo noqdo sifo maartay dadka sidii maartay loo badbaadin lahaa badqabkooda wax walbana waa meesha magaalo waaye waa magaalo dhan la degan yahay in lagu dhex dagaalamo sax ma aha sax waa nimanka qawaariijta wax badan isku dagi karaan oo inay soo rogaal celiyaan isku dagi karaan wax badan sameyn karaan marka wata arrimaha amniga iyo dadka marka ayada amniga shaqada ku leh inaan weydiinaa fiican laakiin anaga waxaan Xagar mudane ma ahan markii ugu horeysay aan ka dhaxgal Xagar ma ahan markii ugu horeysay ee la tago oo laga soo laabto dhowr jeer horan ognahay in ay qabteen ciidamadan oo ay isaga soo baxeen culays soo kuma ahan nabadgelyada iyo amaanka guud ee dadka shacabka hadiiba la qabanayo laga soo baxaya arrintaas qabashadii hore la qaban jiray iyo tan isku mid ma aha tii hore la qaban jiray tan isku mid ma ahan tan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedkii waa ka midaysan yihiin midii horena mid arbusho oo ciidamo ay iska baxaan oo meesha tagaan oo soo arbushaan iska ahaan jirtay tan arbushki ma aha waa ciidamo la diyaariyay oo in badan la diyaarinayay daraawiishta Jubbaland ama nabasud ha noqoto ama ha noqdaan daraawiishtii caadigeed ciidamo danaba ciidamo special ah ciidamo diyaarsan oo loogu talagalay howlgalladaas waaye degmooyinka maqan inay qabtaan loogu talagalay marka ma filayo si sahlan ay ku soo noqon doonaan ma garat waan gartay marka go'aanka Jubbaland u yaalana ma ahayn in intii degmo la tago dadkii deegaankii la barakiciyo dib loogu soo laabto ma ahayn balantii aan wada galay dawladda iyo anaga maadaama xildhibaanada aan nahay in maartay ay sifo wanaagsan loo qabto dadkaas horumarkii iyo xaqiga ku leh Jubbaland inaan gaarsiino maadaama 15 sano ay dib u dhac far badan ku imaaday ma aaminsanina had intii la tago dib loogu soo noqon doono oo nimankii qawaariijta ay dib maartay meesha u sii haysan doonaan aad baad mahadsantahay mudan xilli ugu dambeyntii muxuu yahay baaqaaga ku aadan dawladda dhexe iyo dawladda Jubbaland ku aadan sidii dadkaasi ay u heli lahaayeen dawladnimo waxaan leeyahay dadka in badan ay rafaadsanaayeen 15 sano nimanka gacanta ugu jireen waxaan dareemayaa cunugii bariga dhashay maanta qaangaar waaye dadka waxay u baahan yihiin marka aqoon dheeraad in dadkii u lahaay meesha ay tagaan xildhibaanadii iyo saraakiishii ciidanka oo deegaanka ka soo jeeday in meesha la geeyo si dadka wixii shabaab ah ama qawaariijtaas ah loo garto iyo waxaanan ahayn si dadka gurmad degdeg loo gaarsiiyo sidii waxbarashadii caafimaadkii biyihii in la gaarsiiyo dawladda federaalka waxay ka geysan kartay ka geysan dawlad goboleedka Jubbaland annagaaba hadda mas'uul kaga ah oo bulshadii iyo dawladda annaga u adeegayno wixii naga aadan ayadana waan qaban doonaa laakiin waxaa muhiim noo ah deegaankaas in gacanta lagu hayo degmadaas Xagar haddii gacanta lagu hayo waxay suurtagal gelin kartaa in gado wax badan ay suurtagelin kartaa ma garat waan gartay marka insha Allah waxaan ka rajaynaynaa dawladda federaalka iyo dawladda Jubbaland oo iskaashanayo in ay maartay meesha gacan ku haynteeda lagu dadaalo si loo haan lahayna laga shaqeeyo dadka filitaanka ay filanayaan sababtoo waan la soo weydiinayaa hadda maadaama dhowr jeer hor la qabtay ay weydiisaa dadkii soo weydiina shacabka maadaama dadka Xagar jooga ay soo weydiina waxay leeyihiin maadaama hor loo qaban jiray meeshan laga noqon jiray hadee annaga ma hadii maanta intii la soo galo daran laga noqdo caqabad ay noqonaysa waa su'aalaha li weydiinaya maadaama xildhibaanka ka meesha marka waxaan rabnaa dawladda Jubbaland iyo dawladda federaalkaba maadaama ciidamadii hadda meesha tageen gacan ku hayntina maanta hadda ay si buuxda loogu hayo amnigeeda si lagu sugi lahaay dadka deegaankana ay isku difaaci lahaayeen oo ayagana ay u diyaar garoobi lahaayeen dadka waxa waaye deegaanka degan macawsleydii laga sameeyay maxaa la dhihi jiray gobolada dhexe iyo laga sameeyay way samaysan karaan in la abaabulo dadka si ay isu difaaci lahaayeen dawladana culayska ay saarto meeshaas aan laga soo noqon annaga aan soo dhaweynayna ama soo jeedinayna insha Allah xildhibaan xareed ayuu ahaa oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo isagoo Kismaayo ku sugan aan qadka telefoonka kula hadalnay si aan wax ugu weydiino gacan ku dhiga ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ay maanta gacanta ku dhigeen degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya oo ay 15 sano ka tirinayeen kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab warkan waxa ka soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii uu eber hal ka noqdo.